calaykum asxaabteeda meel kastoo aad joogtiin kusoo dhawaada janalka Uma Axlaam maasha Allah tabarakallah. Uma Axlaam maanta maxay idin wadaa maasha Allah tabarakallah. Maanta waxaan idin wadaa ducadii ardada iskuulka ilmaheyga ay ka qalin jibiyeen markii ay imtixaanka form 4 ay soo galeen oo macallimiinta sagootinta ama ducada ay dhiganayeen aan fiidiyogan diyaariyay. Waxaan go'aansaday markii ay guuleystaan ardadaas in aan soo dhigo maasha Allah tabarakallah. Meel kasta ay joogaan ardadaas way guuleysteen wayna ku baaseen imtixaanka dowladda maasha Allah. Ana kuweyga sidoo kaleeto marka hadda ayaan go'aansaday in aan YouTube-keyga soo geliyo maadaama qabanqaabada ducadaas number 1 aan diyaarinayay. Marka asxaabteeda kuwii hore ila joogay kuwa cusub dhammaantiin soo dhawaada meel kasta aad joogtiin kuwa habeen u tahay iyo kuwa maalin u tahay maasha Allah tabarakallah. Inta waxaan kusoo diyaarin rabnaa raashin yar oo aad u qurux badan. Inta waxaan ku haysanaa jikinkii khudaartii hilib ari maasha Allah tabarakallah. Malaayga dalka khudaarteena quruxda badan wada jeedaan oo aan wax ka maqan aysan jirin maasha Allah tabarakallah. Cabitaanka waxaan kusoo diyaari doonaa strawberry qare batiiq iyo babaay iyo cambe khudaar aad u kala duwan beetroot inkee ku jira ama beetraaf sida aad u taqaanid waxaa ku jiro lim orange tufaax ay nooc khudaar dalkeena maasha Allah tabarakallah. dhammaanteed khudaarta waa ujeedin meeshaan kusoo diyaarinay. Hadda maxaan soo diyaarinaynaa baradhada ayuu nooc laga soo dhigi rabo insha Allah maasha Allah tabarakallah. waxaa ila shaqeynayo qayb ka mid ah caruurteedii iyo gabdhihii ardada maasha Allah. wiilashinka kama maqan meesha ayagana shaqada dhinacooda ka wadaan maasha Allah tabarakallah. ilaahay dhamaanteen caafimaad hana siiyo meel kastoo aad joogno. Soomaali Maxamed soo dhawaada asxaabteeda. hadda waa kana waxaan soo diyaari rabaa khudaartii jikinkii ama malaygii la soo mari lahaay. marka waa kana khudaartii soo shiida kabsartii waa kana dooradii ayaan soo biyo yar kusoo badbadinaynaa. waa kana caradeen iyo maxaan ku dhahay qoryaheen ayaa soo shidanay maasha Allah. maadaama jikinka aad u badnaay digsi weyn aan kusoo saarnay marka waa ujeediin gasaca aan booraha shaqo qarno qabana markii aan booraha laga dhameeyo asxaabteeda yaa marka soo dhawaada laasna kaftan waaye. waa kana inta waa malaaygi oo khudaartii la soo mariyay maasha Allah. malaay nadiif ah fresh ah wadankeena maasha Allah. kheyraadka adduunka yaalo waa ujeediin oo aad u qurux badan. intana waa kana jikinkii oo asna kuleel ah oo biyihii laga soo bixiyay marka asna khudaartiisa ayaa loo soo dhiibi doonaa. aad u badan yahay marka qayb ayaa looga soo bixinayaa biyaha lagu karkariyay maasha Allah tabarakallah. meel kastoo aad joogtiin kusoo dhawaada janalka Uma Axlaam. waa walaashin maadaama aan marmarna aan ka maqanahay insha Allah mar baa lagu tagi doonaa xiriir aan u wadi doono. haddana waa kana asxaabteedii weli ko faano la faro kama qodna dhan Soomaalida. waa kana wax yar kalar ala soo marinayaa waa ogtihiin marka waa soo qurux soo dhigayaa jikinkii markii la soo kala kiciyo maasha Allah tabarakallah. kalarka jeceshaa marsan kartaa anaga kalarka haruudka ku haysanay. waa kana digsi weyn soo saari dabka baradhadana ku sameey doonaa maasha Allah tabarakallah. bariis la soo karinayaa baastadii yaa meesha ka maqneen ayuu cunto maasha Allah tabarakallah. maadaama ay sagootintii iskuulka form 4 ducadii ugu dambeysay oo macallimiinta iyo caruurtooda isku macsalaameynayeen ay tahay aad ayaa looga soo shaqeynayaa cuntada in aad dhadhankeeda macaado ayaan jecelnahay maasha Allah. waa dadaali doonaa sida ku soo baxdana waa arki doontiin. tan waa baradhadii kalarka gaduudka la soo mariyay
kalar kalena waa lasoo sameyn doonaa markasta oo kalarka aad badsatid cuntada u kala bedeshid hadhow waxaa ku qurxanaa doono cuntadaada qayb cadaan qayb gaduud basashan yartana bariiska ayaa lagu soo qurxinayaa hadduu ilaahay yiraahdo oo daabiga ah markay saantaa aad ayay u macaan tahay maasha Allah tabaarakallah inta waxaa igu jira rootiga shiidnaa malaayga ayaan kusoo qalajinayaa marka asxaabteydii waa isla arki doonaa sidoo kusoo baxo waxaa waa dhuxul iyo waxaas jilaac ma jiro maanta qoryo ka shidan tahay gaas wax kusoo karinaa iyo ma jirto marka waxaa waaye qaybtaana ka shidan tahay qoryaha maadaama jikinkii badan yahay wax walba ay badan yihiin waxaa waaye dabka inaa qoryaha shidatid kana malaayina kalarkiisa sidan ayuu kusoo baxay maasha Allah tabaarakallah asxaabteeda insha Allah biidnilaahi kariim sidoo kusoo baxana waa arki doontiin maasha Allah asigoo lasoo diyaariyay oo aad u qurux badan maadaama uu badan yahay hal xab soo gelin intaas rootiga waan ka waxsanay marka korka ka soo marinayna wixii markay badan yihiin iyo markay yar yihiin waa kala culays badan yihiin marka sidii aad ku daji kartid qado ayaan laga rabaa waqti fiican in qadadaas la diyaariyo ayaa laga rabaa marka waa la iska boobsiinoyaa asxaabteeda wixii ka qaldan ha nagula qaato wixii saxana waa kaas waa gabadhiini leegta iyo sheerta iyo commentiga ha loogu soo roonaado insha Allah biidnilaahi kariim jikinkana waa kana sidan ayuu kusoo baxay dahabiga ah oo quruxda badan maasha Allah tabaarakallah inaba caadi maahan lagama sheekay karo sida uu kusoo baxay asxaabteeda waa kana intana bariiska lagu soo karinayaa bariiska marka laba meel lagu soo karin rabaa midna waxaa loo karinayaa macallimiinta midna waxaa loo karinayaa dhalinyarada digsi weyn ayaa lagu soo karinayaa marka insha Allah labadaba waa arkeysiin maasha Allah tabaarakallah dadka waaweyn iyo macallimiinta loo karinayo waa gooni midka kale dhalinyarada loo karinayo ayagana digsi kale gooni lagu soo karinayaa baastada yaa lasoo diyaarinayaa cuntada dhan markii lasoo diyaariyo insha Allah biidnilaahi kariim ayaa ila arki doontiin sidee kusoo baxday hadda bariiska lasoo diyaarinayaa bariis ayaa la kari rabaa maasha Allah waxaa lagu soo bixiyey maraqii hilibka ariga laga bixiyey hilib ari ayaa noogu jiray hilib geel ma isticmaalaynin maanta marka insha Allah biidnilaahi kariim sidoo kusoo baxay waa arkeysiin asxaabteedii uma axlaam iska caajisley waaye marka ayaan joogtaa hal xab video idin soo dhigaysaa halka xabaha lagu qaato mar waxa ku tagi doontiin subax galab habeen dhab soo siisa videoyada marka insha Allah biidnilaahi kariim waa la gaari doonaa waana lagu tagi doonaa marka asxaabteeda soo dhawaada meel kasta aad joogtiin gacmo furan ku soo dhawaada janalka waa janalkiini la soo kala kiciyo waa kasa asxaabteedii waa kana intana fruitkiyo dil ayaan kusoo diyaarinay waa kana inta ujeeda waxa kasto isbaandheys cambe strawberry limo aduun basbaaski wixii dhan waa ujeediin halkan ayaa kusoo diyaarinay markii la diyaariyo ka bacdi haddana meel kale taxafiiskooda ayaa loogu diyaarinayaa macallimiinta maasha Allah tabaarakallah waa ila arki doontiin videoga qaybaha ugu dambeeya markii xafiiska lagu diyaariyay waa tana baastadii kalarka ayadan loogu talagalay in raashinka decoration iyo qurxin looga dhigo maasha Allah tabaarakallah koobkii cabitaanka wax laga suubiyey beetraaf iyo cambe iyo batiiq iyo qare iyo cambe saddexdaas nooc laga sameeyay maasha Allah tabaarakallah waa kan xafiiskii iskuulka markii lagu soo diyaariyay qadada inaba caadi ma